gabadhan Soomaalida waxaa jir dilay ICE. waa gabar ku dhalatay Mareykan, St. Paul, Minnesota. magaceeda Nasra Axmed ayaa la yiraahdaa. waa 23 sano jir. dhowr beri ka hor January 17, 2026 ayadoo gurigeeda parkingkeeda marayso baa rag ICE ka hor yimid. way istaajiyeen, sharcigeeda ayay weydiiyeen, ay dhiigeeda la soo baxday. intay caayeen ee racial profiling ku suubiyeen ee aflagaadeeyeen ee isugu tageen dhulka ayay xoog ku dhigeen. weydkeedu waa 114 pounds ee sheegtay. marka dhaawac ayaa kasoo jir shamiitada inta dul dhigeen ee iskugu tageen rag waaweyn oo xoogan ee xirteen ee detention centerkooda u qaateen waa xirteen. 2 beri ayaa halkaas ku hayn. dhaawacii ayaa weynaaday. isbitaal ayaa u baahan. isbitaal ayaa la sii jiifiyay haddana. kabacdi ICE 2 beri kabacdi way soo daayeen ayagoo ku eedeen in gabadhan wax eeda maxkamad la geenin, dambi loo waayey, familkeedii iyo markay doodeen kabacdi la soo daayay. marka dhaawaceedii ayaa weli ku yaala saad u jeedaan. gabadhan dhibka geystay keliya waxaa waaye waa Soomaali, way xijaabneed, waa Muslim. ICE marka waxay ku cadeynaysaa inay target gareynayso, racial profiling ku subinayso, harassment iyo killing iyo torture ay ku sameynayso dadka Soomaalida ee goob ku nool Minnesota. marka gabadhan ba hadday ku dhacdo Mareykan ayadoo ku dhalatay, bal imagine dadka kale. marka ciyaarta ICE waa xun yihiin. hadda waxay u soo dhigteen dadka inay jir dilaan, xataa dilaan. hala taxadaro, hana la iska ilaaliyo. murankooda ka fogaada, bal iyo dhib idiin geysan. raggan waa rag caraysan oo dadka dilayo, Soomaalidana target gareynayo qaasatan. Nasra Axmed waxay ku sameeyeen dhammaanteen qof walba way ku sameyn karaan. insha Allah gabadhan waxaan rajaynaynaa inuu Ilaahay u booqadhayo. waxaan sidoo kale rajaynayaa iyada iyo familkeedaba inay hay'adda ICE ee cunsuriyiinta ah ay suugareyso maxkamad la aado. way kareynaysaa xaq badan oo fiicanna way helaysaa. dhammaan Soomaalida Mareykan ku nool xilli adag oo xun ayaan ku jirnaa, balaan is ilaalino insha Allah.